السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارت سو دhowaada muuqaalkeenan maanta waxaan ku arkaynaa sida loo qariyo isticmaalkaaga ugu dambeeyay ee adeega Facebook. Marka ugu horeysa waxaan u baahanahay inaan soo furno applicationka Facebook. Marka kadib waxaad taabanaysaa saddexda dhibcood oo kor ka muuqata. Hoos u deg waxaad riixdaa setting and privacy. waxaad ka sii doorataa setting. kadibna waxaad gashaa meesha ay ku qoran tahay active status. halka click si meeshaan maxaa ku qoran marka show when you are active emoji marka khadka ku jirto iska xirtaa turn off siri ka bax inta kuma eka marka waxaad timaadaa messenger kana sidoo kale waxaa xiraysaa halka ku dhufo sawirka kore kadibna meeshaan ay ku qoran tahay active status riix halkaana iska xir turn off. sidaa waxaad ku qarisay isticmaalkaaga ugu dambeeyay adeega Facebook. cidna ma ogaan karto xilligii kugu dambeysay aad isticmaashay ama aad soo gashay khadka. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir page-kan YouTube-ka ku leenahay ee Jaqanti Technology Center. ha ilaawin inaad riixdo subscribe oo aad furato gambaleelka si aad u hesho muuqaalada xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.